يا كرنير هذا بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. waxaan doonayaa inaan maanta ka hadlo sixir bararka xariga goostay ee naafreeyay mujtamaca reer Soomaaliland. inagoo wada ogsoonahay shacbiga reer Soomaaliland inay xaalad adag oo abaareed ka soo baxeen, in abaardad iyo abaar dunyo wada saamaysay oo weligeed taariikhda aynaan hore ugu arag Soomaaliland. abaardad iyo abaar dunyo ka dhacda waxa ayaan darro iyana noqotay in xukuumadda maanta jirta ku guul dareysato inay xakamayn kari weydo sixir bararka xariga goostay. sixir bararka la sheegaya saaka wuxuu marayaa milyan iyo 250. war ninka xoolihii ka baxeen ee caydoobay ee waxoogaa dadku soo ururiyay maalina helaya maalina waayay, marka halkii dollar 12,500 ama 13,000 oo shilin Soomaaliland marayo, miyaanay ayaan darro inteeda la egahay, miyaanay cuquba ahayn madaxweyne dalkan 7 sanaad soo hogaaminaysa inagu horeynu soo maray maantood ka sii dhaadhacaysana dooni maayeen wax badan ku dhaca horeynu waxaynu soo oranaynay sunni adiga iyo inta ku hoos joogtaba horaan uga hadlay anigu waxa ku leeyahay maanta maadaama doorashadii aad qalqaalinayso ilaahay sida khayr kala hayna waafajiyay sixir bararka milyan iyo 200 maray iyo 50 ka saaka ee halkii dollar 12,500 ee Soomaaliland marayo ee ogtahay abaarta iyo dhibaatada iyo darayada iyo bayhoofka ka taagan gobolada Soomaaliland iyo waxa ay ka soo doogayaan wax ka qaban ku leh walaahi baan ku dhaariyay oo sidaas ama halka inuu kor uga sii kaco adigana waa kugu ayaan darro ummadda Soomaaliland waa ku baaba waa dhibaato inteeda leeguy sixir bararka wax ka qaban ku leh waxaan markaan tiifiyada sidaa weego aad ula yaaba ma lahay dir ruuc cadaaga waxba lagaga dayan mooyaan idinka dawladaha jaarka aad suran doontaan tolo maxaa saasoo kale u sameyn weyday madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida kilalka Maxamed Cabdi Maxamuud Cumar ilay horta dhibaato kasta ha soo marta beesha ogaadeen ama dadka kilalka shanaad ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya maanta nolosha ay ku nool yihiin marra waaxid waa wax loo masuudo weey in loo duceeyay mudayn waliba madaxweynahaas waxa uu idinkaga dayan mooyaan in ka yara 7 sanadood joogay idinka wax warmaan mayna wax kaga dayano ayaad oran doontaa horta marray isma lahayn saaka soo waxaan leeyahay madaxweynayntaana maadarka weey in ka yara 7 sanadood kilka joogay wuxuu u qabtay kilka shanaad aduguna PhD baa tahay mujaahid soo halgamay baa tahay saakana dadkaaga macluul bay u baqteeyaa waxaad xakamayn karayso profession u leedahay ayaa saaka rigaadiyo baabiinayo kala hadlay madaxweynaha kilka shanaad Cabdi Maxamuud Cumar ilay waxaan ku bogaadinayaa sida xilkasnimada leh ee raganimada leh ee uu uga faa'iideeyay dadkiisa dawladda Itoobiya uga faa'iideeyay dhibaato badan way soo martay intii dhimatayna Allah ha u naxariisto inta maanta nooli waxay ku nool yihiin naf xalaala waataan lahayn halgankii markaa ka soo doogtaan naf xalaala gali doontaano waxana qaadi doontaan laakiin dib oo noqon doontaa ismaan lahayn marka Cabdi Maxamuud Cumar waxaan leeyahay oo kugu bogaadinayaa sidaad wax ugu qabatay deegaanka dawladda deegaanka Soomaalida kilka shanaadna inta aanad gaadhina gacantaadu ha wada gaadhaan ku leeyahay oo wax qabadkaagu ha wada gaadho si fiican oo aad u qabatay wixii aad qabatayna waad ku mahadsan tahay 100% waana kugu ducaynaynaa. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.